kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayo loolanka doorashooyinka Soomaaliya iyo xogta aan ka hayo. aan ku bilaabay ee daawadayaal berito waxaa magaalada Muqdisho ka dhacaysa doorashadii ugu adkeyd taas oo loo dhiganta doorasho heer madaxweyne waxayna doorashada berito ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanku noqonaysaa doorasho adag oo lagu ogaan doono haddii uu rajo leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Garguurte maxaa yeelay waxaa tartamaya nin kamida kaadiriinta ugu sareysa ururdiimeedka damajidid oo lagu magacaabo Faarax Cabdulqaadir Faarax Toobas ninkaas oo horay loogu diiday inuu kamid noqdo golaha wasiirada Faarax Cabdulqaadir oo lagu eedeeyay inuu manhajkii waxbarashada ee Soomaaliya dalundheer ka tuuray una bedelay manhaj carbeed una kamid yahay saraakiisha sare ee sirdoonka Itoobiya ayaa biri waxay iska hor imaanayaan Qadiijo Maxamed Diiriye oo ah xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya iyo nin ay isku reer yihiin oo lagu magacaabo Cabdiweli Muudey dadka xaaladaha qiimeyn waxay leeyihiin saddexdaasi ayaa waxay noqon doonaan saddexda ugu adag ee wareegga koowaad ama wareegga labaad isula gudba dadku waxay badankood taageersan yihiin marka loo qiimeeyo xildhibaanadu in ay soo baxdo xildhibaanad Qadiijo Maxamed Diiriye laakiin Qadiijo Maxamed Diiriye waxaa laga cabsi qabaa inay taaka ku noqdaan ama ay ka codeeyaan ugu yaraan 60 xildhibaan oo ah kuwa ka tirsan ururdiimeedyada al-Ittixaadka ama hala baxna al-Islaax ama hala baxaano al-Ictisaam ama ha ahada al-Ittixaad kulliitaba 60 xildhibaan ayaa ku jira baarlamaanka dad lagu qiyaasay oo ah kuwa taageersan ama ka tirsan ururdiimeedyada kuwaasi oo aan ogolayn in haween ay soo gasho laakiin dadka wax saadaali waxay leeyihiin 60 xildhibaan waa laga cod badan doonaa oo waxa u codeyn doona xildhibaanada kale sida ay ku soo baxaysaa Qadiijo Maxamed Diiriye dad kale oo xoogaal xeeldeeryaal waxay leeyihiin ninka kureerka Faarax Cabdulqaadir ee lagu magacaabo Cabdiweli Muudey ayaa soo bixi doona maxaa yeelay ninkaas wuxuu aqlabiyad ka haystaa ama uu cod ka haystaa guud ahaan xildhibaanada beelaha Digil iyo Mirifle dhinaca kalena rajada kaliya ee Faarax Cabdulqaadir la tilmaamo inuu heli karo ama codka uu heli karo ayaa waxa la sheegay inay tahay inuu ka helayo xildhibaanada ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan kuwa u dhashay beesha Isaaq si kastaba ha ahaatee lama oga laakiin Faarax Cabdulqaadir haddii uu ku guuleysto gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxay taamicnaheedu tahay in uu Xasan Sheekh Maxamuudna ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliya Faarax ma aha nin la jecel yahay maalin dhaweytay khudbad uu jeediyay oo uu ka jeediyay baarlamaanka hortiisa waxa uu ku sheegay in hooyadii ay aad u jeclayd isoo sheegay inuu 7 bilood ku dhashay oo dad badan ay saadaaliyeen inuu maalmo kooban sii noolaan doono laakiin hooyadii ay u sheegtay inuu noqon doono ninka dalkeeda ka Soomaali baahan doono taasoo dadka qaarkii kaga jawaabeen mahmaahda ama xigmadda oranayso habar walba xaarkay dhashay hayo tira si kastaba ahaatee doorashada berito ee gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxay ka xiiso badan tahay madaxweynimada Soomaaliya waxaa lagu kala ogaan doonaa taageerada ama shacbiyadda ay haystaan damujadiid
waxa kale oo meesha yaalla in dadka Soomaaliyeed badankood ay xasaasiyad ka qabaan qof kasta oo xitaa lagu tuhmayo in ay Ethiopia la shaqayso ama ku daaban tahay waana tan fadeexadda iyo gigida ceebad fariisisay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo maanta ku hungoobay hankiisa ahaa inuu u ordo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kalena sidii aan sii saadaaliyay waxaan dhibicdii ugu horeysay ku helay saadaashii ku saabsanayd in gudoomiyaha baarlamaanka uu noqon doono Maxamed Cusmaan Jawaari anigoo dhinaca kale saadaaliyay in gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka ee uu noqon doono Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah nin u dhashay beeshiisa gaar ahaan habar awal Sacad Muuse taas oo la wada sugayo laakiin qodobka aan doonayo in aan ku darsado arrintaas waxay tahay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha odayaasha dhaqanka ama aqalka sare ee odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee senatoriska ah in uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad noqon doono nin lagu magacaabo Dhegdheer xildhibaan Dhegdheer ama senator Dhegdheer oo u dhashay beesha Mursade ninkaas oo kamid ah dadkii u soo halgamay muddada dheer sidii dowladnimo loogu soo dabaali lahay dalka Soomaaliya dadka qaarkii ayaa waxa ay ku doodayeen in guusha uu gaaray ama gudoominimada uu hantay Maxamed Cusmaan Jawaari ay u macno ahayd in Xasan Sheekh Maxamuud uu guuleystay hase yeeshee markay musharaxiintii u tartamayay gudoominimada baarlamaanka la qiimeeyay ayaa waxa la waayay nin xagga deganaanshaha iyo nidaamka iyo aqoonta uga wanaagsan Maxamed Cusmaan Jawaari waana sababta ay ugu codeeyeen dhammaan xildhibaanadii kala taageersanaa murashaxiinta Shariif Sheekh Axmed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo عمر عبد الرشيد علي شرماركي iyo Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Garguurti intuba marka kuma uu soo bixin Jawaari cod dama jadiid laakiin wuxuu ku soo baxay codka murashaxiintii oo dhan iyadoo meesha kalena qodob dastuuriya oo kamid ah qodobada dastuurka uu dhigayo in laba meelood in saddex meelood laba meel uu ku guuleysan karo qofka tartamaya xilkan looga qaadi karo hase yeeshee sida muuqatay arrintaasi may dhicin oo 141 cod ayuu ku guuleystay Jawaari dhinaca kalena maanta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilkiisa uu si rasmi ah ula wareegay saacadihii ugu dambeeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa waxa uu qorsheynayay in uu safar degdeg ah ugu baxo dalka Itoobiya laakiin safarkiisa waa la hor istaagay kadib markii la soo wariyay in dawladda Mareykanku ay arrinta faragelisay iyadoo dawladda Itoobiya uga digtay in ay qaabisho ama ay qorshooyin u fuliso Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisa uu dhamaaday xilkiina uu si sharciga ah uga wareegay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay kaas oo xilka sii hayn doono tan iyo inta laga soo dooranayo madaxweyne Soomaaliya ay yeelato dadka qaar waxa ay sheegayaan ama saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka ee garoonka Muqdisho in madaxweynuhu garoonka
gudaha u soo galay xilli uu rabay ama uu qorsheynayay inuu u duulo Ethiopia sababa si uu halkaasi uga helo ciidamo ilaalo ah oo Muuse loo soo diro iyo ciidamo kale oo la wareego ammaanka magaalada Cadaado oo saaxiibkii ama wiilku adeerku yahay Cabdikariim Xuseen Guuleed xilkii laga eriyay. hase yeeshee taasi ma dhicin oo waxaa leeyahay xasan sheekh maxamuud waxaa u soo dhacay telefoon kaas oo lagu baajiyey oo loola sheegay inaysan xilligan suurtagal ahayn in uu Ethiopia booqdo. dhinaca kalena Brito ama maalinta Jimcaha waxaa lagu wadaa in uu Muuse gaaro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Murashax Shariif Sheekh Axmed oo la rumaysan yahay inuu yahay murashaxa ugu awoodda badan ee ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku loolami doonaan wareegga labaad iyo wareegga koowaad ee tartanka doorashada madaxweynimada Soomaaliya iyo dadka xeelarayaashana ay meesha ka saarayaan in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu leeyahay awood ama uu haysto xildhibaano isaga taabacsan oo uu codayn doono. si kastaba ha ahaatee maalinta berita waxay noqon doontaa maalin weyn oo taariikhiya oo shacabka Soomaaliyeedna ay wada xasan doonaan. waxay noqon doontaa berito maalintii farxadda ama waxay noqon doontaa maalintii murugada. waxay beri noqon doontaa maalintii rajada ummadda Soomaaliyeed ama waxay noqon doontaa maalintii rajo la'aanta ummadda Soomaaliyeed. waxayna qof walba oo wax garta oo beri dareemi doonaa halka dabaysha siyaasadda ay u socoto. waxa qofta oo Soomaaliya beri xaqiiqsan doonaa xildhibaanada la soo doortay ama musuqmaasuqa ku soo galay baarlamaanka ama sida caadiga loo soo doortay ee matalaya beelaha Soomaaliyeed cidda ay yihiin. waxay beri xaqiiqsan doonaan in xildhibaanada cusubi ay noqon doonaan kuwii hore kuwa ka sii liito oo fadlan lacag ku shuba ah ay noqon doonaan dad wadaniyiin oo Soomaaliyeed oo doonaya in ay dib u saxaan qaladaadkii horey baarlamaanadii la soo dhaafay ama baarlamaanadii waqtigoodu dhamaaday ka dhacay. waxaa beri la filayaa in weji cusub ama sawir fool xun ama mid qurux badan laga dheehdo muuqaalka guud ee baarlamaanka Soomaaliya. taa waxaan uga socdaa dareenka shacabka oo maraya meel xasaasiya. labadii qof ee Soomaaliya isu timaada maanta wax isweydiin doonaan waxa soo bixi doona berito. haddii ay dhacdo in Faarax Cabdulqaadir loo codeeyo oo la doorto, waxay ka macno tahay in codka uu Faarax helay uu soo waagi doonin Xasan Garguurte. laakiin haddii ay dhacdo in Faarax kaga ceebad la fariisiyo oo laga codeeyo, taasi waxay ka macno tahay in Xasan Garguurte uu quustay oo uu fashilmay. laakiin dadka qaarkiin waxay leeyihiin waxaa dhici karta in xildhibaano badan oo Xasan doonay in lacag ka qaataan ay u codeeyaan Faarax Cabdulqaadir, maadaama ay dhiman tahay lacag bixintii murashax Xasan Sheekh Maxamuud uu rabay in loogu codeeyo. si kastaba ha ahaatee saadaashayda ama qiimeynteeda iyo xog urunteeda waxay leedahay madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socoto waa Shariif Sheekh Axmed.
waxaan la sugayaa shariif waxa uu ku shaqayn doono ma dariiqii xasan sheekh maxamuud ayuu mari doonaa xasan garguurta oo wuxuu noqon doonaa qabaan u shaqeeya ama ka baqa Ethiopia iyo Kenya iyo dowladaha reer galbeedka ma wuxuu noqon doonaa nin sii wada xaraashka hantida qaranka Soomaaliyeed mise wuxuu noqon doonaa hogaamiye ha qabtida shacabka Soomaaliyeed oo ku shaqeeya rabitaankooda dalkana gaarsiiyo qof iyo cod si kastaba ha ahaatee waayaha isguraya maalmaha saacadaha ka harsan ee Brito aynu wada naawilno qof kastana dareenkiisa ku foogo waxa ka dhici doono Brito golaha baarlamaanka. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa idinkaga tegayaa waa dheeman caalamkuye intaydan dhibtaan. ha isku noqon dhadhamaraa isticmaar ku dhaansaday dhulkeennana ha gadanina. وظاهر على سوء أو إذن لا نبادينو أنت إن دبدو بكل ما إنه برنامج كحقت إيه حراسي والله كدرشين كصوماليا حبق ليس.